Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Tuugada internetka ama hackeriska waa kuwo waqtigoodu la soo bilaabmay tiknoolajiyada casriga ah, waana kuwo ay fursadoodu sii badanayso markasta oo caalamku u sii guuro dhinaca digitalka ama tiknoolajiyada casriga ah. Si la mida internetka ayaa hackeriska ka dhigay kuwo awood u leh inay jabsadaan wax kasta, sida siraha ciidanka, doorashooyinka, siraha kombaniyada waaweyn, iyo xitaa kamarada mobilkaaga. Haddaba maanta waxaan idinla wadaagi doonaa hackeriskii ugu khatarsanaa taariikhda, kuwaasi oo u adeegsaday aqoontii ay u lahaayeen cilmiga hacking-ka meelihii ugu yaabka badnaa. Kevin Paulsen u ekaanshaha muuqaalkiisa mid aan dhib lahayn, haddana waa mid ka mid ah hackeriskii ugu khatarsanaa taariikhda Mareykanka, kadib markii uu jabsaday shirkad xagga telefoonada isgaarsiinta ah, kadibna uu khadadkii telefoonada u weeciyay xarun raadiyo oo ku taalay Los Angeles. Si uu ugu guuleysto abaalmarin uu raadiyowgu siinayay dadka soo wacaya, waxa uuna sidaas ku helay lacag dhan $20,000. Laakiin intaas kuma uusan ekayn weeraradiisii jabsashada, waxa uuna isku dayay inuu jabsado kombuyuutarada xarun FBI-da Mareykanku leedahay, taas oo ku riday dhibaato uusan filaynin. Sababtoo ah waxaa isla markiiba la ogaaday isku daygiisa jabsashada, waxaana la amray in la soo qabto. Kevin waxa uu dhuumanayay 18 bilood ka hor inta aan la qaban, waxaana lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah, taas oo noqotay muddadii ugu dheerayd ee qof hackera lagu xukumo dalka Mareykanka waqtigaasi. George Hotis waxa uu ahaa mid ka duwan hackeriska kale, sababtoo ah isku dayadiisa jabsasho waxa ay ahaayeen kuwo aan dhibaato badan uga iman karin. Waxa uuna caan ku ahaa inuu jabsado waxyaabaha shirkadaha waaweyn soo saaraan, sida shirkadda Apple iyo shirkadda Sony, taas oo uu lacago aad u badan ku heli jiray. Waxaana ka mid ah waxyaabaha uu jabsaday PlayStation 3 oo ay shirkadda Sony soo saarto, moobilada iPhone ee shirkadda Apple, iyo weliba kombuyuutarada shirkad uu leeyahay bilyaneerka caanka ah ee Elon Musk. Jonathan James, halka dhalinyarada da'diisa ah ay kombuyuutaradooda ku ciyaaraan game ama waxyaabo kale, waxa uu isagu ahaa mid ku jabsada kombuyuutarada xarumaha ugu ilaalada badan adduunka, sida NASA oo ah xarun lagu sameeyo baaritaanada hawada sare iyo waxyaabaha cirbixiyeenada la xiriira, iyo aqalka Pentagon oo ah xarun madaxeedka waaxda difaaca ee Mareykanka. Waxa uu weerarkiisii ugu horreeyay ku sameeyay NASA, isagoo helay baasweedhada ay ku galaan softweerada ay ka maamulaan xarunta, waxaana taasi ay ku khasabtay NASA inay demiyaan dhammaan kombuyuutaradooda muddo 3 usbuuc. Mar la weydiiyay sida uu ku jabsaday, waxa uu sheegay in habkooda security-ga uu ahaa mid aad u daciif ah. Gary Micknon oo loo yaqaan Solo waa mid aysan weligii cafin doonin NASA. Waxa uu ahaa mid maalintii ka shaqeeya maamulka sistamyada kombuyuutariska ee NASA, habeenkiina jabsada kombuyuutarada. Waxa uuna sidaas ku jabsaday 97 kombuyuutar oo NASA leedahay. Si la mid ah waxa uu dhilidgareeyay xogo badan oo kombuyuutaradaas ku jiray. Fariimaha laga hayo ee uu u soo diray NASA waxaa ka mid ah: magacaygu waa Solo, habkiina security-gu waa mid kharaab ah, waanan sii wadi doonaa inaan idin khalkhaliyo ilaa xad. Jan Chrysler, sawirka faraha ama fingerprint waa mid ka mid ah waxyaabaha aanu jirin qof kale uga eki, isla markaana ay adag tahay inaad koobiyeyso adigoo aan helin faraha qofkaasi. Sidaasoo ay tahay, ninkan u dhashay Germany waxa uu ku guuleystay inuu sameeyo sawirka faraha qof aan goobjoog ahayn. Qof kalena ma aha ee waa wasiiradii difaaca Germany ee xilligaasi. Waxa uuna ku guuleystay inuu sameeyo sawirka faraheeda kadib sawirro ay leedahay oo uu internetka ka helay. Intaas kuma uusan ekayn, waxa uu sidoo kale jebiyay iPhone 5S oo lagu furi jiray sawirka faraha 24 saac kadib markii ay shirkadda Apple soo bandhigtay. Intaas ayaan idinla wadaagnay saaxiibayaal maanta. Haddii aadan channelka weli ku soo biirin, fadlan subscribe saar. Haddii uu fiidiyowga ku qanciyay, like saar. waad mahadsan tahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.